godadka ama manaasisha dayaxa ay u kala yaqaanaan carabta iyo soomaalida waa sidan. kan ugu horeeya waa asharataan, soomaalidu waxay dhahaan godan. ka xigaana albutayna, soomaalidu waxay u yaqaanaan listan. kan kale waa athuraya, soomaalidu waxay u yaqaanaan lixo. bismi illaahi araxmaani araxiim. halkan waxaan ka bilaabaynaa taxanaha cilmiga xidigista iyo soomaalida heerkii ay ka gaareen iyo siyaabihii ay u adeegsan jireen, hadday tahay tirsiimada iyo xisaabta kalendarka soomaalida iyo siday ugu fara dhuudhuubnaayeen kasaadaalinta cimilada. marka hore waxaa habboon in aan ka hadalno waxa uu yahay cilmiga xidigista, kaas oo ah mid soo jireen ahaa marka laga hadlayo dhanka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida, meel kasta oo ay joogaan iyo casri kasta oo ay ku jiraan, tan iyo intii alle ku abuuray soomaalida geeska afrika. cilmiga xidigista waxaa kale oo loo yaqaanaa cilmilfalag. waxaa lagu bartaa dhaqdhaqaaqyada iyo isbedelada walxocireedyada sida qoraxda, bisha, meerayaasha iyo xidigaha. waxaasi mudan in aan xusno in islaamka xaaraantinimeeyey u adeegsiga xidigista curaafinta iyo ka hadalka mustaqbalka cilan iyo nasiibka, taasoo ay adeegsan jireen carabta wakhtigii jaahiliga, waxaana buriyey islaamka, caddeeyeyna adeegsiga in uu yahay shirki iyo alla ka furasho. sababtoo ha adeegsiga waxa uu horseedaa in la rumaysto waxaan alla ahayn in ay keeni karaan dhib iyo waxtar. rumaysiga faaliyayaasha iyo kuhanada ku been abuurta in ay og yihiin cilmulgheybka si ay dadka u geliyaan damac, iyaga oo ku ciyaaraya caqliga dadka si ay u qaataan maalkooda una fasahaadiyaan caqiidadooda. haddaba cilmiga xidigista ee aan halkan uga hadlayno waa kaan hore usoo sheegnay ee lagu macneeyo isbedelada walxocireedyada iyo sababta keenta isbedelada. marka ugu horreyso oo aan rabno inaan wax ka ogaano cilmiga xidigista oo aan cirka kor u eegno, waxyaabahaan aragno waxaa ugu muuq weyn qoraxda, dayaxa, kadibna xidigaha, gaar ahaan habeenkii oo uu aragga xidiguhu suuragal yahay maqnaanshaha qoraxda awgeed. haddaan ku bilowno dayaxa, waxa uu ku wareegaa dhulka, wuxuuna ku jiraa lambarka 5aad marka laga hadlayo xajmiga ee hab qoraxeedka ama solar systemka. dayaxa inuu hal mar kusoo wareego dhulka waxay ku qaadataa 27.3 maalin, oo la mid ah 27 maalin iyo 7 saac. taasi waa dhulka marka laga soo qaado inuu taagan yahay, laakiinse dhulka isagana wuxuu dhankiisa ku wareegaa qoraxda. sidaa darteed dayaxu wuxuu u baahdaa 2.2 maalin oo dheeraad ah si uu u dhammaystiro ku wareega dhulka, kuna soo laabto halkii uu ka bilaabay socodka 1dii bisha. markaa bishu waxay kaamil ku noqotaa 29.53 maalin. sidaa darteed mar kasta bisha waxay ku dhammaataa 29 ama 30 maalin. dayaxa, qoraxda iyo meerayaasha waxay ku socdaan cirka xariiq loo yaqaano ecliptic. dayaxa ilaa ay bisha dhammaanayso, habeenkii alla keeno wuxuu ka soo agbaxaa xidig ka duwan tii xalay, taasoo ay carabtu u yaqaanaan mansil, soomaaliduna god, kuwa oo ay tiradoodu tahay 28 mansil ama god. magacyada godadka ama manaasisha dayaxa ay u kala yaqaanaan carabta iyo soomaalida waa sidan. kan ugu horeeya waa asharataan, soomaalidu waxay dhahaan godan. ka xigaana albutayna, soomaalidu waxay u yaqaanaan listan. kan kale oo saddexaad waa athuraya, soomaalidu waxay u yaqaanaan lixo. kan afaraad waa addabraan, soomaalidu waxay dhahaan ama u yaqaanaan magaca ah cadaad. waxaa ku xiga alxaqca, soomaaliduna waxay u yaqaanaan agaalicas. ka lixaadna waa alhanca oo ah agaalicad. kan 7aad addiraac oo ah afagaal. kan 8aad annathra oo af soomaaliga ah naafcadde. ka 9aad magaciisu waa adtarfa, soomaaliduna waxay u yaqaanaan naaf madoobe. ka 10aad waa aljabha, soomaaliduna waxay u yaqaanaan afqoys. 11 waxaa ah azabra oo soomaalida dhahaan majin. waxaa ku xiga oo 12 ah assarfa oo soomaalidu u yaqaanaan kuxdin. kadibna waxaa yimaada alcawaa oo ay soomaalida dhahaan dirirdaye. kadibna assamaak mansilka 14aad
soomaalidu waxay u yaqaanaan dirir. kadibna alkhafra oo ah kan 15aad soomaalidu waxay u yaqaanaan garbo. kan 16aad waa azabani, soomaalidu waxay u yaqaanaan bayaxaw. godka 17aad waa ikliil, soomaaliduna waxay dhahaan gudban. kadibna waxaa yimaada alqalb oo soomaalidu dhahaan libcas. mansilka 19aad waa ashawla oo ay soomaalidu dhahaan mareeg dheer. 20 waxaa ah annucaa'im oo ay soomaalidu u yaqaanaan xoor ama hoor. 21 waa albalda oo ay soomaalida dhahaan baho. 22 sacatu daabix, soomaaliduna waxay dhahaan faruur. 23 sacatu bulca oo ay soomaalidu u yaqaanaan jid gabare. sacatu sacuud oo ay soomaalidu u yaqaanaan jid diriqle waa mansilka 24aad. sacatu aqbiya waa mansilka 25aad, soomaaliduna waxay dhahaan jid gacan leh. 26aad waa farqulmuqadam, soomaalidu waxay u yaqaanaan rab hore. waxaa xiga kan 27aad oo magaciisu yahay farqulmu'akhar oy soomaalidu dhahaan rab dambe. kan ugu dambeeya ee 28aadna waxaa la yidhaahdaa al rashaad, soomaaliduna waxay dhahaan meecaad. xidigaha aan kor ku soo sheegnay ee uu dayaxu u hoydo waxay noqon karaan mid ama laba ama in ka badan, ama meel bannaan oo aan xidiga lahayn. kooxaha xidigaha ah ee uu dayaxu la dego waxaa lagu magacaabaa abraaj oo ka timid magaca burji. tiradooduna waa 12 iyo mid aan rasmi ahayn oo aan gadaal ka faahfaahin doono. waxaana magaciisa la yidhaahdaa alxawaa, afka qalaadna wuxuu ku noqonayaa oficius. 12ka burji ee aynu soo sheegnay magacyadoodu waxay kala yihiin alxamal, althawr, altaw'amaan amase aljawsaa, alsarataan, alasad, alcadraa amase alsumbula, almiisaan, alcaqrab, alqaws, aljadya ama aljudiya, addalwa iyo alxuut. gebi ahaanba burjiyadan waxay dhacaan marinka ay ku safraan dayaxa, qoraxda iyo meerayaasha. waxaa kala duwan xawliga ay ku socdaan qoraxda iyo dayaxa. meegaar kasta ama daa'irada ama waxa loo yaqaana seerkalka waxa uu ka kooban yahay 360 digrii sida la ogyahay. markaa dayaxu waxa uu habeen kastaa dhaqaaqaa 13 darajo, taasoo marka 360 digrii loo qaybiyo 13 digrii ama darajo noqonaysa 27 habeen. markay timaado qoraxda maalintii waxay jartaa 1 digrii, waxayna ku qaadataa 360 digrii inay soo dhammaystirto wareegga, taas oo ah sannad. intaana waxaan ku soo gebagabaynaynaa qaybtii koowaad ee ku saabsanayd xidigista iyo dhaqanka soomaalida.